dadka ku dhaqan deegaanada miyiga ee waqooyiga magaalada Gabiley ayaa cabasho ka muujiyay xawayaanka daanyeerka kadib markii uu dagaal dhex maray iyaga iyo daanyeerka kaasi oo daanyeerku kaga adkaaday isla markaasina uu kaga qabsaday beeraha iyo guryaha ay deganaayeen waxa ay dadkani sheegeen daanyeeradani oo tiro badan ay soo weeraraan maalin kasta iyagoo boqolaal ka badan isla markaasina ay awoodi waayeen iska celiyaan waxayna xuseen in dagaalkaasi ay kaga dhaawacmeen 2 qof iska celiyo waxa oo cuna laakiin kani waa ku kaankii ahayn oo ciida ka badan oo malaayina oo dadka magaalooyinka Gabiley inta leegin ka badan ah oo xoog adeegsanaya oo dadka boobaya oo leynaya oo xoolaha cunaya oo aqalada yaryar ee dadka reer buraagu sitaan galaya oo wixii raashin intuu furto cunaya dawladda waxaanu ku leenahay hadaad wax ka qaban karaysaan ama dadka xariya u ooda meel aan saaka laga cabanay ma jirto meel walba waanu maray dadku dhaawacay baa dhakhtarka yaala biyaha kulka hadii saaba looga baxo markiiba uu gelayaa dabeedna waxa wixii yaala hadduu raashin tahay hadday lacag tahay sida bini'aadanka si ka daran buu u baaraa anagu waanu la dagaalanaa habeen iyo dhara isagu baanu la joognaa bahalkani faraba amuu nagu hayaa wuxuu ka soo guuray ilaa xeeb buu ka soo guuray kuwii aan arki jirnay hore ma Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley.